filimkani uu ku furmayo muuqaal dareemaya sida saxda ah ee loo shiday sida Faransiiska Squad 3 oo lagu sii daayay Netflix isla maalintaas. Filimkan Mexico wuxuu leeyahay qalbi badan. Jilayaasha ayaa aad u nuuxnuuxsan, goobtuna waxay leedahay qoto dheer oo dheeraad ah. Sidoo kale, wakhtiga runtu waa 4 daqiiqo oo kaliya, markaa waa saacad degdeg ah. Hoos ka wad akhrinta filimka Counter-Attack. Ka hel Netflix laga bilaabo Febraayo 2, marka raggii wanaagsana ay diidaan inay isdhiibaan. Xudunta u ah Netflix action thriller Counter-Attack waa sheeko ku saabsan sida ragga wanaagsan looga tiro badnaan karo balse ay wali diidaan inay isdhiibaan ama quustaan. Ilaa iyo inta ay jiraan dad rayid ah oo iyaga ku tiirsan, kooxdani waxay samayn doontaa wax sax ah. Dabcan, sinaba uma fududa marka askarta sida dhabta ah u ah niman wanaagsan ay sidoo kale ku hareeraysan yihiin dambiilayaasha iyo sharci fulinta ee la shaqeeya dambiilayaasha. Si kale haddii loo dhigo, dad badan oo xunxun. Dhammaan waxa ay ka dhacayaan meel aad ugu dhow xuduudda Maraykanka, halkaas oo howlgalka badbaadinta la haystayaasha uu cadow cusub u yahay Kabtan Guerrero oo hadda uun yimid. Si kastaba ha ahaatee, waxay og yihiin in inta ay jiraan dad wanaagsan oo u taagan waxa saxda ah, ay jirto rajo dalkooda. Taasi waa sababta Kabtan Guerrero iyo askartiisa caanka ah ay dib ula dagaalamaan markii ay soo weerareen koox dambiilayaal ah. Xaqiiqda ah in haweenkan la afduubay ay si lama filaan ah ula kulmeen xabaal wadareed, si cad ayay wax uga sii dartay. Waxay markhaati u yihiin waxay ahayd inay qarsoonto. Ka hortagga, dib u eegis Netflix Counter-Attack. Dhowr weji oo la yaqaan oo kabka ah. Markii aan daawanayay iska horimaadka Netflix, waxaan sii waday inaan arko jilayaal aan ka aqoonsaday wax soo saar kale. Inta badan wax soo saarka aad u wanaagsan, taasoo igu keentay in aan rumaysto in filimkan kaliya laga yaabo inuu bixiyo wax ka badan waxa muuqaalka furitaanka tilmaamay. Jilayaasha waxaa ku jira jilayaasha sida Luis Alberti oo ka socda Playing with Fire, No Hernandez oo ku jiray xabsiga 211 iyo Mayra Batalla oo ka socota Huesera, haweeneyda lafta ah. Sidoo kale, waxaan leenahay Leonardo Alonso oo ka socda Sin Nombre cajiib ah, 209. Guud ahaan, filimka Netflix ee Mexico wuxuu leeyahay jilayaal aad u wanaagsan xitaa doorarka yaryar. Iyo runtiime wax ka yar saacad iyo badh, waxaa jira jilayaal badan oo leh wakhti yar oo shaashad ah laakiin jilayaal leh muhiimad. Daawo ka hortagga Netflix hadda. Haqa Artas waa agaasimaha Counter-Attack. Cinwaanka Counter-Attack ee Netflix. Waxa kale oo uu agaasimay 2 zombie horror majaajilada Zombies, marka isagu kuma cusba filimada rabshadaha iyo dhiigga badan. Si kastaba ha ahaatee, kani aad ayuu uga duwan yahay filimka Zombie. Shaashada waxay ka timid Jose Ruben Escalante Mendes, oo sidoo kale qoray filimka naxdinta leh ee Mark of the Devil. Cinwaanka La Marcha del Demonio oo aan dib u eegnay halkan. Waxa xiisaha lihi leh, wax soo saarkan Mexico ka ahi waxa uu wax ka qabtaa isla arrimo la mid ah in qaar ka mid ah saraakiisha Mexico ay weerareen filimka Netflix ee abaalmarinaha badan leh ee Emilia Bress si uu u sii jiro. Isagoo sheegaya in taasi aysan hadda ka jirin Mexico. Si kastaba ha noqotee, haddii aad daawatay dhowr dukumeenti Mexico ah, waxaad ogaan doontaa inaysan gebi ahaanba run ahayn. Haddaba, filimkan Netflix ee khayaaliga ah ee laga keenay Mexico waxa kale oo uu ka hadlayaa arrinta dadka lalayahay ee laga helay xabaalo wadareed kadib markii sharci fulinta ay diideen inay sameeyaan baadhitaan badan. Ka hortagga ama Counter-Strike wuxuu saaran yahay Netflix laga bilaabo Febraayo 2, Faahfaahin. Agaasime Tafa Artas. Qore Jose Ruben Escalante Mendes. Xidigaha Luis Alberti, No Hernandez, Mayra Batalla, Luis Turiel, Roberta Burns, Leonardo Alonso, David Aldernlen. Shirqoolkii. Marka howlgalka badbaadinta la haystayaasha uu abuuro cadow cusub ab. Guerrero iyo askartiisa caanka ah waa inay wajahaan weerar gaadmo ah oo ay geystaan koox dambiilayaal ah.